waa dhacdo aad u xanuun badan. Boqolaal qof ayuu ka hor istaagay in weerar ismiidaamin ah lagu dilo. Hase yeeshee asiga ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi. Ka horse wuxuu ahaa bare macallin iskuul dugsi sare. Wuxuu haystaa shahaadada master degree. Wuxuu doortay inuu noqdo sargaal sare oo ka tirsan booliska Soomaaliya. 22 saac oo caafimaad ahaan ugu maqan yahay dalka Turkiga. abaalkiisa laga dhigay in xilka qaadis lagu sameeyo. Waase suurtagal adiga daawanaya in dhacdadan xanuunka badan oo kale ay ku qabsato mustaqbalka. Kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta awada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxa idin leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeya cid walba muuqaalka la gareeysa shar gareysana waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa umuuraha leedahay ilaahay inuu sahla ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaada uu barakeeya inta awlaadoonkaana ilaahay awlaad baari ha siiyo inta gurdoonkaana gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna ha siiyo qof walba oo muuqaalka sheerta ku qabtaa la gareeyana waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa mal adduunyo ay safileen inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiya dambigoodi dambiga waalidkoodana ee baa u dhaafaa rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku azuma jannatul firdaws ala xaasidka waxa leenahay wa min sharri xaasidin ida xasad al xaasid la yaflah bi idnillahi al kareem waxa ku dambeynaya hoog iyo qasaaro rabbi subhanahu wa ta'ala ana hogaamiyal daacada Soomaaliya ha siiyo Cabdirasaaq Macalin Kaas wuxuu ahaa sargaal ka tirsan booliska Soomaaliya wuxuuna taliye ka ah saldhigga Afariirdood ee degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir toddobaadkii hore wuxuu ku dhaawacmay weerar ismiidaamin ah oo la doonayay in lagu qaarijiyo mas'uuliyiin dawladda ka tirsan dad shacab ah iyo waliba ganacsato kale taas oo la doonayay in laga fuliyo maqaayad ku agtaal agaarka saldhigga Afariirdood laakiin taliyaha saldhigga degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir Cabdirasaaq Macalin Kaas ayaa geesinimo muujiyay isla markaana ka hortagay weerarkii ismiidaaminta ah waxayna taas sababtay aakhirkii qofkii ismiidaamiyaha in jaakadii qaraxa uu ku tuuro taliyaha saldhigga degmada Xamarweyne Cabdirasaaq Macalin Kaas waxaana Cabdirasaaq soo gaaray dhaawac culus taas oo keentay in loo qaado dalka Turkiga 22 saac ka hor halkaas oo uu ku maray qaliin khatar ah laakiin waxa la sheegay in xaaladiisu caafimaad hadda ay soo hagaagayso wax ka yar uu ka maqan yahay dalka 22 saac isla markaana xaalad caafimaad uu ugu maqan yahay qoyskiisa iyo waliba familkiisana wali ay la ilmeynayaan khatarta uu wajahay wiilkooda Cabdirasaaq Macalin Kaas taliyihii saldhigga degmada Xamarweyne waxay taliska booliska Soomaaliya ay soo saareen war qoraal ah oo ay ku sheegayaan in la bedelay taliyihii saldhigga degmada Xamarweyne ee qaraxa ismiidaaminta ah ka hortagay Cabdirasaaq Macalin Kaas laguna bedelay shakhsi kale taas oo si weyn u niyijibisay bukaan Cabdirasaaq Macalin Kaas iyo waliba caruurtiisa xaaska uu ka tagay iyo sidoo kale waalidiintiisa kuwaas oo ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana rajeynayay hadii wiilkooda caafimaad ahaan uu soo fiicnaado in la dalacsiiyo bishaar ahaan mishaarka loo kordhiyo darajo ciidankana darajo lagu daro isla markaana saldhigga uu joogo in laga dhigo taliye qaybeed laakiin taas bedelkeeda waxa lagu abaalmariyay in laga qaado xilkii waasa ayaan darro haysato dhalinyarada Soomaaliyeed ee doonaysa ay ka mid noqoto askarta dawladda waxayna tani muujinaysaa in qofka askariga intuu caafimaad qabo oo kaliya in la doonayo sargaalkana sidaas oo kale uu yahay isla markaana sida Cabdirasaaq Macalin Kaas meel cidlaha laga dhaqaaqayo maalintii uu dhaawac waxayna tani keenaysaa in saraakiishii askarta ka gaabsadaan dagaalka ay kula jiraan dagaalyahanada dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya iyo dalal lacageeska Afrika xasa qof walba maankiisa ku soo dhacay sida loo galay Cabdirasaaq Macalin Kaas taliyihii saldhigga degmada Xamarweyne oo ahaa sargaal sare oo ka tirsan booliska Soomaaliya ka hor intuusan qoranin booliska Soomaaliya Cabdirasaaq wuxuu dhameeyay jaamacadda heerkii koobaad wuxuu sidoo kale dhameeyay uu qaatay shahaadada master degree soo isla markaasi baraka ahaa dugsi sare oo ku yaal magaalada Muqdisho galina macallin ka ahaa mid kamid ah jaamacadaha ku yaal magaalada Muqdisho wuxuu intaasi ka doortay inuu noqdo askari dabadeedna sargaal uu u dalaco dalkana uu difaaca sida asiga uu aaminsanaa Cabdirasaaq Macalin Kaas madaxda booliska Soomaaliya ayaa calool xumo baday Cabdirasaaq iyo sidoo kale familkiisa qaar kamid ah familka Cabdirasaaq oo ku sugan degmada Kaxda aan la hadlay waxay ii sheegeen inaysan hadli karin isla markaana ay dareemayaan calool xumo xoogan oo kaga timid dhanka taliska booliska Soomaaliya dhalinyarada wax baratay ku sugan Muqdisho ayaa kolkii hore waxay sheegi jireen inaysan qoranaynin askarta dawladda waxayna arintaas ay u sababeen jireen in dhalinyarada ka timaado dagaalyahanada al-shabaab durbadiiba xidigaha lagu taxo halka dhalinyarada wax baratay Muqdisho ku suganna haday qortaan askarta aan la siinin wax xidig ah tixgelin gaar ahna laga dhaxsiinin gudaha ciidamada kala duwan ee Soomaaliya ay leedahay waa muhiim dawladda in mudnaan gaar ah ay siiso dhalinyarada wax baratay ee ku sugan gudaha dalka kuwaas oo ah madaxda mustaqbalka Brito dhammaanteen aan u hiilin walaalkeen Cabdirasaaq Macalin Kaas oo hadda dhibana ah